بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوذهنا شرفت لوكو سو دوادا دوبي ميديو iyo MDobi barahan kuleyna social media waxaan kula wadaagi doonaa dalkaada hooyo waxyaabaha ka jira warkii aan isleeyahay bulshada waxay isgelinayaan waxaana kamid ah maanta Garbaharey garoonka diyaaradaha waxaa lagu risaaseeyay diyaarad ay saarnaayeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka iyo sidoo kale mas'uuliyiin maamulka Jubbaland oo asaaro ka soo gaaray rakaabkii diyaaradda saarnaa ee mas'uuliyiinta ay kamid ahaayeen maxay tahay sababta loo risaasay warbixin la xiriirto ayaa in la wadaagi doonaa waxaana qayb ka ah sidoo kalena Garbaharey maamulkeeda oo ka hadlay labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maanta kulankooda wadajirka ahaa meel mariyay miisaaniyadda dowladda federaalka Soomaaliya ee 2023 kulankii maanta qaabka ay u ansixiyeen maaliyadda dowladda Soomaaliya warbixinaan ka diyaarinay waa idin soo gudbin doonaa sidoo kalena dowladaha Kenya iyo Soomaaliya heshiis wada gaar muxuu yahay heshiiskaasi qayb ayuu ka yahay sidoo kalena saddex ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo maxkamadda ciidamada qalabka sida maanta xukun ku riday kadib markii ay rabeen in ay iibsadaan hubkooda warbixin la xiriirta maxkamadeyntaasina qayb ayay ka tahay ee u diyaar garooba ayagoo faahfaahsan balse adigana daawanaaday tahay booqashadaada koowaad aan soo booqatay janaalkeena Dobi Media YouTube-ka subscribe-ka noo saari fadlan calaamadda guud horta subscribe-ka taabo gambeelka fursi ama maxamed joogto noqon sidoo kale Facebook-ga ee barteena ee page-ka ee MDobi follow hadii soo dhigay fadlan follow na soo dhig video-ga laga noo saar asxaabtaada u sii share garay mahadsanid waa tahay hadii aan ku bilaabo garoonka diyaaradaha ee magaalada Garbaharey ee gobolkaasi Gedo maanta markii diyaarad soo caga dhigatay ee waday mas'uuliyiin ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale kan kale maamulka Jubbaland iyo kan maamulka gobolka ayaa waxaa halkaasi risaas ku furay ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Jubbaland waxaana ka dhashay khasaaro oo ahayd mid soo gaartay diyaaradda shakhsiyaadkii saarnaa hal qofood oo booliis ah diyaaradda saarnaa ayaa halkaasi lagu risaaseeyay waxaana mas'uuliyiintaasi ay ahaayeen kuwa hordhac u ah wafdi oo gudoomiyaha gobolka oo rabay inuu ku imaado magaalada Garbaharey wararku aanu ku helayno Garbaharey ayaa waxay tilmaamayaan ciidamadaasi inay ahaayeen kuwa gadood ah isla markaasina diidanaa waxaana risaas ku fureen diyaaradda markay soo cagdhigtay garoonka halka dhabaha ay runway-ga ku cararaysay balse dib iskaga kacday maamulka gobolkaasi ee Gedo gaar ahaan magaalada Garbaharey ayaa waxay ka warbixiyeen maanta waxay halkaasi ka dhacay waxa dhacday inay maaragtay meeshii diyaaradda ay degaysay ay la aadeen maaragtay qorooyinka admis oo joogana waxa weeye go'aan ay ku dilaan ama go'aan dhibaato ay ugu sameeyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ma ogolin dadka maleesiyaadka oo meesha joogana annaga maamulkeena la xiriireen waxaan eedeen dad baa joogo aeroboortka maleesiyaada oo shacab dhar dawladda aan ka midayn annagana meeshii markii aan tagay waxa ii muuqatay saddex qof oo maleesiyaad ah oo shacab ay ku jireen kala xoogga dalka Soomaaliya waxaan markiiba aniga go'aan ka qaatay inay diyaaraddaasi ayna degin markina waxaan halkaan isku faanayna waxa dhacday taliye xoogga oo cusbaan oo ismaan ay yimid isagana ay ka amar diideen sidaas ayna diyaaradda ku noqotay hadda iyo danna waxaa meeshaan diyaar lagu yahay wixii shacabka kolley qaybaha shacabka iyo qaabka loo qabsan lahaa iyo qaabka loo qaban lahaa waxaa ka maaragtay mas'uul ka noqon doona ciidanka mas'uuliyadda iyo ciidanka booliska mar labaad iyo mar saddexaad waxaan soo jeedaa maadaama taliyuhu yimid maanta in gacan bira lagu qabto dadkii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed saraakiisha ay ka mid tahay oo diyaaraddaasi haday meesha tageen ka qayb qaatay iyo dadka sheeganaya dhaqanka kulanka wadajirka ahaa ee labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maanta ahaa akhrintii saddexaad ee miisaaniyadda dowladda federaalka Soomaaliya ee ansixintiisa ee 2023 ayaa maanta waxaa kulankaasi shir gudoominayay gudoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka Sheekh Aadan Maxamed Nuur ayadoo goobjoog ahaayeen ku xigeenada labada aqal ee baarlamaanka gudiyada baarlamaanka ee maaliyadda ayaa halkaasi waxay ka sharxeen soo qorshe lagu horumarinayo kobcinta dakhliga gudaha iyo qorshe lagu mideyn karo cashuuraha dalka mudanayaal waxa la socotaan iyo marwooyin mudane gudoomiye mudanayaal dalkeenu waa hal dal intaasoo dekedeed buu leeyahay
maamuladu intooda badan insha Allah waxaan wasaaradda ka codsanaynaa miisaaniyada kala imaanaysa in maaragtay ay si gaar loo tixgeliyo marka waxaan idinka codsanaynaa anagoo maaragtay ku hadlayna guddiga miisaaniyadda in maaragtay la ansixiyo duruufaha waddanka maanta ka jira darteed. intaasi kadib wadajir ayagoo ah xubnaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya 169 xubnood ayaa ogolaatay waxaana halkaasi natiijada ku dhawaaqay gudoomiye Sheekh Aadan Madoobe. hal xildhibaan ayaa diiday 2 xildhibaanna waa ka aamuseen 169 xildhibaan oo isugu jiro dhammaantood xildhibaanadii sanatarada shirka waa wada jir 169 waa ogolaadeen sidaa daraadeed miisaaniyadda 2020 waa ansix. waxaana halkaasi ka mahadceliyay guddoonka aqalka hoose ee guddiga maaliyadda iyo wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya. waa mahadsan yihiin labada gole dhammaan xubnaha labada aqal waa mahadsan yihiin wasaaradda maaliyadda dhammaanteed iyo saxaafadda iyo shaqaalaha golaha iyo dhammaan inta joogta musharaxkuna waa mahadsan yihiin. waxaan u soo istaagay inaan idinka mahadceliyo anigoo bahda wasaaradda afkeeda ku hadlaya sida sharafta leh xilkasnimada ku jirto aad uga gudateen waajibkii qaran ee idinka saarnaa xeer ka mid ah xeerarkeena. ugu dambeyntiina gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa baarlamaanka wuxuu ka codsaday in waqti hore ee xukuumadda iyo baarlamaanka ay keenaan miisaaniyadda si meel loo mariyo. maaragtay miisaaniyadda keenisteedii biraha loo cayimay oo dastuurkeena iyo shuruudaha kulligood u cayimeen inay ku keenaan taasaan faraynaa sababtoo ah markasta waxay maaragtay xildhibaanada caqabad ku noqonaysaa miisaaniyadda waqtigeeda waa dhacaya la leeyahay ayaa imaanaysaa orod ay noqonaysaa arrintan hadda maanta waa nag gudubtay alxamdulilah. dowladaha Kenya iyo Soomaaliya ayaa waxay gaareen heshiis ku aadan sidii wadajir laskaga kaashan lahaa la dagaalanka kooxda argagixisada gobolkeeda sii dhacay al-shabaab. kulan dhex maray la taliyaha dhanka arrimaha amniga ee Soomaaliya madaxweynaha Xasan iyo sidoo kale dhiggiisa ee dalkaasi Kenya madaxweynaha arrimaha dhanka amniga u qaabilsan ayaa kulan ay qaateen waxay isku afkarteen sidii dagaalka lagula jiro kooxda argagixisada gobolkeeda sii dhacay loo sii xoojin lahaa wejiga labaadna Kenya ay ka qayb qaadan lahayd isla markaasina xadkeeda ee si buuxda ugu adkeynaysa si farxadka uu soo galin. waxaana maalmihii ugu dambeysay socday dardargelin ku aadan arrimaha la xiriiro dabargoynta kooxdaasi iyo weliba dowladaha safka hore Kenya ka mid tahay dagaalka inay ka qayb qaataan. maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta u fadhiisatay dhageysiga ee ku aadan 3 eedeysan oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan guutada Khalid bin Waliid kadib markii ay damceen inay la baxsadaan hubkii loo dhiibay isla markaasina la soo qabtay. waxaana halkaasi la keenay 3 qori ee dowladda Soomaaliya ugu dhimatay inay cadowga kula dagaalamaan waxayna ka mid ahaayeen ciidamadii ugu soo tababaray dalkaasi Masar. waxaana maxkamadda ciidamada qalabka sida ee faahfaahin ka dhageysatay Dhame Saalim oo ahaa taliyaha ciidankaasi. waan raadinay meel yiraahdo Nuurdugla markay imanayaan ayaan ka war helnay Sargaal oo jooga laba xidibla oo yiraahdo Axmed Maxamed Yuusuf yiraahdo ayaa noo qortay markuu qotay gaariga Cabdibilah oo diray oo la soo kaxeeyay waxa la yookan dhaaf nimca waxaan ka qaaday telefoonadii waxaan ruuxa sheega u ku celin waa gadanay cidii ka gadkayna ma aqoon waxaan sameeyay telefoonadaan ka qaaday baaritaan ku sameeyay lambaradii aan wacay xiriiraan la sameeyay dadka deegaanka aan wacay in ay soo joogo waxaan ogaaday xogti iyo cidda qoriga laga gaday iyo lacagta laga bixiyay. waa tahay gudahana intaasi ayaan ku soo gabagabeynaa qodobadii dhowrka ah ka daawanaysay baraan ku leenahay social media ee Ethiopia Media iyo sidoo kale MDB tan iyo markale inta kulmi doono waxaan idinka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo iyo kulan kala xiiso leh.